لاعبka kooxda kubadda cagta ee Chelsea Willian ayaana markaa xusaya in iibintii Eden Hazard ay dhabarjab xoogan waqtigan xaadirka ku noqotay kooxda kubadda cagta ee Chelsea. لاعبka u dhashay wadankaasi Brazil ee Willian ayaa xusay tan iyo xilligii kooxda uu ka dhaqaaqay Eden Hazard waxa soo wajahay dhibaatooyin aad u sareeya maxaa yeelay kooxda kubadda cagta ee Chelsea waxa uu ahaa Eden Hazard hogaamiye rasmi ah waxaana uu ahaa sidoo kale nasiibka kooxda kubadda cagta ee Chelsea xaqiiqdii waan ku raacsanahay oo kaliya Hazard in hamigiisa uu gaaro maadaama intuu ku sugnaa gegada Stamford Bridge ee kooxda kubadda cagta ee Chelsea Hazard mar walba waxa uu hadalhayo ku biirista kooxda kubadda cagta Real Madrid ugu dambeyntiina riyadiisa ayaa urmooda saaxiibkii qaaliga ayaa laga soo xigtay Willian oo markaa xusaya in Hazard uu ahaa lafdhabarka ugu muhiimsan ee kooxda kubadda cagta ee Chelsea xaqiiqdii waxa kooxda kubadda cagta ee Chelsea ay lumisay ciyaartoy tayo aad u wanaagsan waxaana tusaale ahaan u soo qaadanaya Hazard iyo David Luiz maxaa yeelay labadaas ciyaartoy waxay ahaayeen kuwa muhiim u ah kooxda kubadda cagta ee Chelsea ka tagistoodana waxa ay hoos u dhac xoogan ku yimid mustaqbalka kooxda kubadda cagta ee Chelsea runtii waxaan kula talinayaa madaxda kooxda kubadda cagta ee Chelsea inaysan ku degdegin ciyaartoyda lafdhabarka u ah kooxda kubadda cagta Chelsea in aanan loo gacan gelin kooxaha kale ay ku xifaaltamaan tartamada qaaradaas Yuruba Willian ayaa sidoo kale markaa xusaya in xidigaha Hazard iyo David Luiz wali uu aad u tabayo maadaama labadaas ciyaartoyba ay ku kala biireen Real Madrid iyo Arsenal Willian ayaa sidoo kale waxa uu ka mid yahay ciyaartoyda laga yaabo inay isaga dhaqaaqdo xil ciyaareedkani gegada Stamford Bridge ee kooxda kubadda cagta Chelsea maadaama waqtiga kan xaadirka loo gacnaatinayo horyaalada Talyaaniga Spain iyo sidoo kale Faransiiska maamulka kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa qorsheynaya in xil ciyaareedkani ay iska iibiyaan xidigaha Umtiti iyo Ivan Rakitic labadani ciyaartoy ka tirsan kooxda kubadda cagta Barcelona Umtiti iyo Ivan Rakitic ayaa markaa lagu wargeliyay inay isaga dhaqaaqi doonaan kooxda kubadda cagta Barcelona stadiada Camp Nou kadib markii door dalabyo ka soo gaaray horyaalada Ingiriiska iyo sidoo kale Faransiiska Ivan Rakitic ayaana markaa u muuqan doono inuu aqbali doono dalabyadii ugu dambeeyay ee ka soo gaaraya Talyaaniga iyo Ingiriiska laakiin waxa la sheegay in Umtiti uu aad markaa u doonayo ku laabashada horyaalka liiganka wadankaasi Faransiiska kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa maalin hore waxay soo bandhigtay in labadaas ciyaartoy Umtiti iyo Ivan Rakitic ay ku iibin doonaan wadarta lacageed ah 110 milyan oo lacagta banka oo dollaraan u dhiganta 137 milyan madaxda sare ee kooxda kubadda cagta ee Barcelona waa ay ka go'an tahay in isbedel xoogan ay sameeyaan maadaama madaxweynaha kooxda kubadda cagta Barcelona uu xusay in la kordhiyo qiimaha ciyaartoyda kooxda kubadda cagta Barcelona lagu iibinayo ayadoo la doonayo in kooxda kubadda cagta Barcelona hoos u dhaca ciyaartoyda qiimaha yar ay ku iibinayso in markaa meesha laga saaro sababtoo kooxda kubadda cagta Barcelona marka ay ciyaaryahan la soo wareegayso waxay kula soo wareegtaa lacag aad u fara badan marka ay iska iibinaysana qiimo yar ay markaa ku jirtaa laakiin waqtiga kan xaadirka madaxweynaha kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa arintaasi xusay in aysan suurtagal noqon doonin oo lacag fara badan lagu iibin doono in ka badan 100 milyan balse waqtiga kan xaadirka ayay markaa arintaasi kooxda Barcelona doonaysaa in ay markaa rumayso tobabarihii hore ee kooxaha Real Madrid iyo Manchester United Jose Mourinho ayaa ka hadlay arrimaha ay saxaafadda wadankaasi Spain toddobaadkii ugu dambeeyay ay hadalhayeen ee ku aadanaa in Mourinho dib ugu soo laaban doono kooxda Real Madrid Jose Mourinho ayaana markaa sheegay in arintaasi ay tahay mid riyo ah marna ma dhici doonto inaan dib ugu laabto garoonka Santiago Bernabeu maxaa yeelay kooxda kubadda cagta Real Madrid waxay haysataa macallin muddo dheer ku soo dhex jiray kubadda cagta Zinedine Zidane waa nin koob aad u muhiimsan kula guuleystay kooxda kubadda cagta Real Madrid waxaan taasi aan u leeyahay kooxda kubadda cagta Real Madrid waxa ka dabeecad ah haddii ay guuldarooyin dhowr kulan ay la kulanto waxa si weyn u bamboonanaya arrimahaasi saxaafadda wadankaasi Spain dirbadiibana maamulka kooxda kubadda cagta Real Madrid waxa ay dhageystaan warka ay sheegayaan saxaafadda wadankaasi Isbaanishka dirbadiina waxay go'aan hore ka gaarayaan markaasina eedda dusha laga saaro macalinka hogaaminaya kooxda Real Madrid Zinedine Zidane waa nin dulqaadkiisu aad u sareeya waana igu dulqaad badan yahay waqtiga kan xaadirkana aad ayaan ugu xumahay in la xuso in bedelkiisa marka laga raasado banaanka ayaa laga soo xigtay macallin Jose Mourinho laakiin macallin Jose Mourinho waxa uu leeyahay haddii xiriir ay la soo sameeyaan maamulka kooxda kubadda cagta Real Madrid marna ma dhiceyso in aan ka aqbalo ku laabashada Real Madrid tobabarka kooxda kubadda cagta Manchester City macallin Pep Guardiola ayaa markaa xusaya in Arteta uu mustaqbalka uu hogaamin doono kooxda kubadda cagta ee Manchester City uu noqon doono bedelka macallin Pep Guardiola arintan ay waxay ku soo beegmaysaa kadib markii Pep Guardiola uu xusay in Arteta uu qalmo
in uu ka bedelo jagada macalinimo macalin Pep Guardiola maadaama waqtigan xaadirka ay ka wada shaqeeyaan garoonka Etihad ee kooxda kubadda cagta Manchester City. Pep Guardiola ayaa Arteta ku tilmaamaya inuu yahay macalin aad u wanaagsan waana nin aad ula dhaqma si xushmad leh dhammaan ciyaartoyda. waxaan aaminsanahay kalsooni weyn ku qabaa in Arteta mustaqbalka dhow uu guulo kala duwan u la gaari doono kooxda kubadda cagta ee Manchester City. taasi waxaan u leeyahay Arteta waa nin aad u adag waana macalin runtii dhamaystirkiisu aad u wanaagsan waxaan uu noqon doonaa hogaamiyaha rasmiga ee kooxda kubadda cagta Manchester City waxaana uu xilka iga bedeli doonaa sida ugu dhaqsiyaha badan ayaa macalin Pep Guardiola marka laga soo xigtay. Arteta oo ah macalin ku xigeenka kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa horay markaa u soo jiitay dhowr kooxood ee ka dhisan horyaalada Mareykanka iyo Shiinaha balse go'aankiisa oo kaliya waxa uu ahaa in uu qabto mid ka mid ah kooxaha ugu xoog badan ee ka ciyaara gudaha wadankaasi Ingiriiska. Pep Guardiola ayaana markaa u arka aragtidiisa in Arteta uu yahay ninka kaliya u qalma in uu bedelo hogaanka kooxda kubadda cagta Manchester City mustaqbalka dhow. ciyaaraanka kooxda kubadda cagta Manchester City David Silva ayaa waqtiga kan xaadirka uu dalab ka soo gaaraya horyaalka wadankaasi Mareykanka. laacibkani ka tirsan kooxda Manchester City ayaa xil ciyaareedkan marka uu dhamaado isaga dhaqaaqi doona garoonka Etihad waxaana loo gacanhaatinayaa horyaalka MLS-ka wadankaasi Mareykanka. David Silva ayaana waqti wacan ku qaatay kooxda kubadda cagta Manchester City asagoo maalin ka hor uu la soo xiriiray David Beckham oo markaa kula talinaya inuu ku soo biiro kooxda Miami ee ka dhisan horyaalka wadankaasi Mareykanka. David Silva ayaa markaa waxaa lagu tirinayaa inuu yahay ciyaartooyda ugu muhiimsan ee u qalma inuu u dhaqaaqo horyaalka wadanka ka soo dhex muuqday kooxaha ka dhisan horyaalka wadankaasi Mareykanka. kooxaha kubadda cagta ee New York Red Bulls iyo Miami ayaana ah labada kooxood ee ugu horeeya ee sida gaarka u daneynaya saxiixa wiilka kan ka tirsan kooxda Manchester City David Silva. kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur ayaa sidoo kale rajeynaysa inay gacanta ku soo dhigaan xidiga kooxda Sporting Lisbon Bruno Fernandes. laacibkani oo ay si weyn u xiiseynayaan kooxaha ka dhisan horyaalka Premier League ayaa maamulka kooxda kubadda cagta Tottenham waxay u arkaan inuu yahay dooq aad u wanaagsan xidigaas inuu u qalmo in bisha January sanadka 2020 uu ku soo biro gigada kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur. waxaana laacibkani Bruno oo ka mid ah ciyaartooyda qadka dhexe kooxda kubadda cagta Sporting waxa uu si weyn u soo jiitay kooxaha ka dhisan horyaalka wadankaas Ingiriiska. Tottenhamna waxay noqonaysaa kooxdii shanaad ee ka dhisan Premier League oo si gaar ah u daneynaysa dalabka ciyaaraankaasi Bruno Fernandes oo ah xidig aad markaa ugu dhex muuqda qaybta qadka dhexe. ciyaarankani sidoo kale waxa uu diiday dalabkii ka soo gaaray kooxaha Juventus iyo AC Milan waxaana uu dooq wanaagsan u arkaya u dhaqaaqista Premier League waxaana arintani ka faa'iideysanaya tababaraha kooxda kubadda cagta Tottenham oo u arka in Bruno uu ku wanaagsan yahay imaashaha stadia kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur. kooxaha kubadda cagta Real Madrid iyo Paris Saint-Germain ayaa wali isku haysta dalabka wiilka ee Afrika ee Sadio Mane. ciyaaraankan u dhashay wadankaasi Senegal Sadio Mane ayaa waqtiga kan xaadirka la xusaya in dalabyada ay ku xoojinayaan labadan kooxood ee ka dhisan Faransiiska iyo Spain Real iyo kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain. madaxda sare ee kooxda kubadda cagta Liverpool waxay toddobaadkii ugu dambeeyay ay sheegeen inaysan suurtagal noqon doonin in wiilka reer Afrika Sadio Mane si fudud uu kaga dhaqaaqo Stadia Anfield maadaama laacibkan ballanqaadyo xoogan ay u sameynayaan maamulka kooxda kubadda cagta ee Liverpool. jirada Gazzetta dello Sport ee ka soo baxa wadankaasi Talyaaniga ayaa markaa xusaya ninka kan Senegalese ee Sadio Mane in markaa la doonayo waqti dheer inuu ku sii sugnaado gigada kooxda kubadda cagta Liverpool. Mane ayaa kooxda kubadda cagta Liverpool waxa uu soo cagdhigtay 1 July sanadii 2016 heshiiska kooxdaasina waxa uu ka dhici doonaa uu kula joogo bishii lixaad ee sanadka 2023 waxaana dhawaan uu heshiiska u sii cusboonaysiiyay 22 bishii November ee sanadkii 2018 waxaana waqtiga kan xaadirka kooxda kubadda cagta ee Liverpool ay diyaar u tahay in ciyaaraankaasi heshiiskiisa la sii gaarsiiyo tan iyo sanadka 2025 isbedel waliba waxa loo balan qaadayaa in sanadkiiba uu qaadan doono adduun dhan 11 milyan iyo bar oo lacagta banka waana lacag aad u fara badan maadaama wiilka reer Afrika ee Sadio Mane ay lacag waaliyaha u balan qaadayaan kooxaha kubadda cagta Real Madrid iyo Paris Saint-Germain. Liverpool ayaa doonaysa toddobaadadan gudahoodaba in go'aan rasmi ah ka gaarto waqtigan ay ugu sii dheereyso wiilka reer Afrika ee Sadio Mane. madaxweynaha kooxda kubadda cagta Real Madrid Florentino Perez ayaa dooq ugu muhiimsan u arkaya bedelka Zinedine Zidane laacibkii hore kooxda kubadda cagta Liverpool ee Xabi Alonso.
ciiraankii hore ee kooxda kubadda cagta ee Liverpool Alonso oo da'diisu ay tahay 37 sano jir ayaa markaa la tilmaamaya inuu noqon doono bedelka tababaraha kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Zinedine Zidane sida jirada Mundo Deportivo Spain markaa laga leeyahay ay shaacinayso maadaama horay bandhigyo kala duwan ay u sameeyeen wargeysada ka soo baxa wadankaas Isbaanishka iyadoo la xusay in dhowr macallin ay musharaxiin u yihiin sida macallinka hore ee kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus Massimiliano Allegri Raul oo ahaa kabtankii kooxda kubadda cagta Real Madrid iyo tababare Jose Mourinho saddexdaasi macallin ayaa musharax markaa loo arkayay inay yihiin bedelka macallin Zinedine Zidane laakiin waqtiga kan xaadirka madaxweynaha kooxda kubadda cagta Real Madrid Florentino Perez ayaa markaa dooq wanaagsan u arkaya in Xavi Alonso uu noqon doono bedelka maamulaha kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Zinedine Zidane oo laga yaabo in markaa laga eriyo hogaanka shaqada kooxda kubadda cagta Real Madrid waxaana Alonso la leeyahay maamulka kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa xiriir la sameyn doona maadaama waqtiga kan xaadirka Florentino Perez oo madaxweynaha kooxda kubadda cagta Real Madrid warko mid ugu muhiimsan in uu Alonso markaa bedelo Zinedine Zidane ugu dambeyntiina ciiraanka reer Brazil Neymar weli buusan ka samrin rajadiisii ahayd inuu dib ugu laabto kooxda kubadda cagta Barcelona la yaab لاعبكani ka tirsan kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain waxa uu leeyahay isku day kale ayaan sameyn doonaa si aan kaga dhaqaaqo magaalada Paris ee wadankaasi Faransiiska muhiimadeeduna waxa ay tahay oo kaliya inaan Spain markaa ku laabto gaar ahaan Stadio Camp Nou ee kooxda kubadda cagta Barcelona xaqiiqdii aad ayaan u jeclahay ayuu leeyahay dhammaan saaxiibadii aan ku lahaa kooxda kubadda cagta Barcelona ciiraankani abiisa ayaa toddobaadkii ugu dambeeyay waxa uu xusay in wiilkiisa uu la doonayo ku biirista garoonka Santiago Bernabeu ee kooxda kubadda cagta Real Madrid arintaasina khilaaf xoogan ayaa ka taagan oo wiilku waxa uu doonayaa Barcelona aabahana waxa uu la doonayaa wiilkiisa ku biirista kooxda kubadda cagta ee Real Madrid maxaa yeelay heshiiskii labada kooxood ee PSG iyo Barcelona ee u dhaxeeyay ayaa markaa burburay markii saddexaad laakiin Neymar weli waa uu u arkaa in rajadiisu aysan lumin waxaana uu doonayaa in arintaasi mar kale uu ka dhaadhiciyo maamulka kooxda kubadda cagta Barcelona in wada hadalkaasi ay soo cusboonaysiiyaan Leo Messi oo kamid ah hogaamiyaasha ugu muhiimsan kooxda Barcelona ayaa weli rajo ka leh in Neymar uu iman karo kooxda kubadda cagta Barcelona iyadoo Messi uu ka cabsi qabo wada hadalka Neymar abiisa iyo maamulka kooxda kubadda cagta Real Madrid taasi oo markaa uu Messi uu sheegay inay dabarjab xoogan u tahay kooxda kubadda cagta Barcelona laakiin Neymar ayaa markaa muhiimadiisu ay tahay marka la gaaro sanadka cusub in isbedel uu ka sameyn doono xifradiisa kubadda cagta asagoo rajeynaya inay u dhamaan doonaan wax walba ay ku aadan u dhaqaaqista kooxda Barcelona